wixii faahfaahin inta dheerna kala soo xiriir telefoonada wanaagsan idil ahaantiin baa akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka xog waran ee telefishinka Ariel oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. barnaamijka waxaan ku horeysanaynaa maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Cidin oo aan wax ka weydiinayno arrimo badan oo ku saabsan waxqabadka dawladda hoose iyo dabcan dhinaca siyaasadaba. mudane gudoomiye waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaadna siisay adigoo hawl waliba ku jira. ugu horeyn barnaamijka soo bandhigteen akhrintii miisaaniyaddii sanadkii tegay iyo waxqabadkii dawladda hoose si toos ah telefishinada uga tabiiseen muhiimadda ugu weyn ee barnaamijka qaabkan u soo bandhigtaa ku jirta maxay tahay adinku uga jeedaan mar labaad waan soo dhaweynaya waan ku mahadsan tahay ujeedada aan ka leenahay markaan si dhaba kugu sheego waxaan isku daynay barnaamijkan 2013 markii golaha deegaanka u cusbaa ma aysan suurtagelin muhiimadda laga leeyahay waxa weeye annagu waxaan haynaa xilka maalmo waxaanu haynaa mas'uuliyad waxaan maamulaa wax ilaahay mooyaan cidna loogeen inta badan inaan bulshadayadu xaqiiqada dhabtaa ogaato waayo himiladaan leenahay waxay tahay dhaqaalaha dawladda hoose soo gala inuu bulshadayada galo oo gaadho oo ay bulshadu si guud isu bartaan aanay si gaara dhaqaalaha dawladda hoose iyo aan bulshadu isu baranine ay dhaqaalaha dawladda hoose adeegyada asaasiga galaan waxaan uga jeednaa dakhligiina soo galay ilaha noocan uu naga soo galay kharashkii aanu bixinayna sidan aan u manage karaynay sidan aan u maamulnay sidan waqtigan runtii aad aan uga xumahay waayo imka waa aragnimada ayaa noo korodhay waxaan aragnayaa saacadu aan nagu filayn waxaanu ka doonaynay bulshadu inay ka dheehato miisaaniyadda oo ay tiraahdo maayarka sahay safartiisa kharashka uu isticmaalo waa intaa nabadgelyada waxaad ku isticmaashaa lacagta intaa caafimaadka waxaad gelisaa lacagta intaa dadka taakuleenta waxaad siisaa intaa iyo intaa maxaad halkaa u gelisay lacagta dakhliga sidaad u isticmaasho waa qalad ayaan ka doonaynay marka waa himilo aan leenahay anigii golahayga deegaanku baan leenahay inay bulshadayadu ay dhab u dhadhamiso ay u aragto waayo erey ka mid ah baa ahaa waxaan idhi waxaad igu eedaysaa maayarku gaari buu leeyahay guri buu leeyahay waxaanu xaday haddii aan laga cadaynin miisaaniyaddii baa ku soo hordhigay oo detailskeedii ku siiyey waanaad weydiisaa mashaariicda yaad siisaa waxaan ka doonayay bulshada taahdo mashruuca iskuulka ka dhistay waxaad siisay bal kambariyadii noo sheeg baan ka doonayay inay yidhaahdaan imisadaa kambani baa mashaariicdan qabtay kambariyadu sidee u helaan qandaraaska sidee baa waxa la yidhaahdaa marka dadka meelaha afxooglayaasha ama facebook isticmaala waxay yidhaahdaan cid baa lagu naasnuujiyaa mashaariicda dhammaan waxaasoo dhan baan doonay maradan ka faydno ay bulshaduna si dhabtaa u ogaato waxaan maamulaa inay tahay wax dhaba xilka iyo mas'uuliyaddan haynana in ilaaha raxmaanka mooyaan ana binaadamka haddaan wax khaldayo binaadam ma qaban karo laakiin ilaahay ayaana la dhaafi karin wata ujeedada dhabtaan ka leenahay waa tahay dadka siyaasadda xanta had iyo jeer siyaasadda ka shaqeeya waxay leeyihiin golaha deegaanka Berbera qaabkan waa ka olole ha inay dadkii kasbadaan bay doonayaan muddadoodii oo soo gaaban iyo dabcan dawladii hoose la kala diray sheeko saasoo ku soo gashay imanka dalka oo qaabkaas ay uga jeedaan maxaa arrinta ka leedahay waxaan kaga jawaabayaa waxaanu bilownay 2013 runtii golayaasha deegaanka ee dalka iyo golaha deegaanka ee Berbera taariikh bay leeyihiin ku kala duwan yihiin qaabkay golaha deegaanka ee degmada Berbera anu aan maayar ka ahay aan ku soo baxnay iyo sidii aanu nolol doortay iyo bulshadayadu waxay naga saadaalinaysay ololaha iyaga marka taariikhda dib u raacdo waxaad arkaysaa marka iyagu hay yiraahdaan oo iyaga afkooda u xora laakiin anagu waxaan ku leenahay qorshaanu sanadkii u dhignaa haddii aanay wax qoran aanay ahayn ololay noqonaysaa laakiin waa wax noo qoran taariikhda dib u raac January laga bilaabay ilaa December waxaanu si joogto ah u wadnaa mashaariicdii aan dadka u sheegnay wixii dadka u sheegnay waxaaneen ee golaha deegaanka aan saxiix waxaan hadaan wadno waxaan noqonaa dad aan waxba maamulin maalin wixii qalbigooda ku soo dhaca yeela marka haddii la kala dirayo anigu waxaan ahayn ku iclaamiyay iyadoo naloo kordhin waqtigu naga dhamaaday diyaarna waxaanu nahay saacadii aduu magacaawa kala diro madaxweynuhu isaga madaxweynaha qaranka waan soo dhaweynaa diyaarna waan ka nahay isbedel baa dhacay siyaasadeed oo iminka sanad baa xukuumadda Soomaaliland jirta xukuumad horena way jirtay
wada shaqaynta idinka iyo dawladda dhexe idinka dhaxaysa maxaa iska bedelay isbedelka xisbiga kulmiye labada xukuumadood isbedelay wallaahi wax noo kordhay mooyee wax horta naga nusqaamin waxa noo kordhay kalsooni aan caadi ahayn oo ah in madaxweynihii qaranku uu yidhaahdo soo bandhig markaan u soo bandhignaa aan ku nidhi madaxweyne waxaanu doonaynaa inaan miisaaniyadda iyada sidaa iyo sidaa iyo sidaa bulshada la wadaagno wuxuu idhi soo daa oo bulshadu ha aragto madaxweynuhu waxay u tahay ibafur inuu isaguna dhammaan cid kasta oo mas-uul ah xilka u haysa inay bulshadooda la wadaagaan marka waxa weeyaan waa isbeddelka ayaynu waa wixii aanu muuse ku dooranay markaan ololaha ku jirnay waxaan ugu ololeynay inuu wax beddelaan u ololeynay waxaanu la dhacsanahay kolley baanu shakhsiyan habka iyo maamulka iyo hannaanka u wada ee furnaanta ah waayo wuu ii diidi lahaa sidii kuwii ka horreeyay bay igu diideen inaad qaabkan u soo bandhigtid inaan soo bandhigo watay kaliya waxa la ogolaa waxaanu qabanay waxaan uma jeednaana waxaanu qabanay waxaan ma aha tacaawa waxaan qabanay waxaan waxa weeyaan dakhligaagii miisaaniyaddu wuxuu ahaa intan ma helnay miisaaniyaddii aan ku odorosnay haa hadday jawaabtu tahay sidaad u isticmaashay sidaa marka waa taa weeyaan tan ku sheegay watay maayir golayaal deegaano badan baa jira oo dalka ah oo magaalooyin waaweyn oo kala jira dabcan qaar ka mid ah sida togdheer oo kale waxay yidhahdaan cashuuro ay u sinaayeen golayaasha deegaanka ama degmooyinka dalku ayay si gaara loogu naasnuujiyaa degmada berbera taasaa u fududaysay in ay arrimahaasaan u soo bandhigaan oo waxqabad badan qabtaan maxaad ka leedahay taayada su'aal lay weydiiyo su'aashan ugu jecelahay horta mas-uulku haddii aanu xilka loo igmaday aanu aqoonin ama aanu akhriyin shuruucda dalka u taallaa dee wuxuu doonu iskaga hadlaa horta waxaan doonaya inaad fahanto cashuuraha ay dawladahaas qaadaan matalan ereygaas wuxuu uga jeedaa matalan dhoofka xoolahoo kale dhoofka xoolaha dawladaha hoose maxay leeyihin cashuurta leeyihin waa maxay cashuurtii dawladaha hoose leeyihin waxa weeye waa daabaqaad waa saylad wey sayladda hargeysa sayladda burco dalkeenna labadaas sayladood baa ugu weyn daabaqaaddeeda hadduu taleex laga soo qaado dawladda hoose taleex baa qaadataa anigu waxaan ursadaa raftiyado wax la yidhahdo raftayado 21 casho daabaqaadu ka soo qaaday haddii 21 casho ay maalin ku dhaafto markaasay waajibaysaa cashuur halka iyagu ay 3,000 oo shilin ka qaadaan anigu waxaan qaadaa 700 oo Somaliland oo digaa ayaan qaadaa marka horena waan uga jawaabay aniga hargeysana leeyma dooranin burcana leeyma dooranin meel kasta oo ku yaala dalkeena ku taalaan wuxuu leeyahay kastanka wixii ilaahay ugu soo rido ayuu mooy dawladda hoose kastaaba ka qaadataa marka haddii ay hargeysa ay inooga dhisan yihiin ugu yaraan 800 oo kun oo guri inoo dhisan yihiin oo aan daan idhaahdo berbera maxaa guryaha looga dhisi waayey oo hargeysa 800 oo kun oo guri looga dhisay waxay kastanka berbera iyo kastanka hargeysa iyo kastanka burcaaba deni walba hashiisa waxay u dhiijiso ayuun buu leeyahay ka cabayaa laakiin cashuuraha yaga wanaga soo bandhignay 3% halka naga soo galaan inta kalena naga soo gasho wata laakiin maayir waxa jira xeer la yiraahdo lambar 13 xeer 13 oo dastuurka ku jiro oo mideynta cashuuraha la yiraahdo kaasi 12 dabcan kaasi leeyihiin berbera uu hiiliyay oo annakiiba aan tayada ku haysanin arinta koreed xeerku wuxuu mideynayaa cashuuraha walaadalkan ku faansiyo xeerkaasi wuxuu oranayaa dhammaan degmooyinka kastamadu ku yaalaan waxa ay ku leeyihiin degmo kastaaba 10% ayuu oranayaa dakhliga guud ee MT la yiraahdo dawladaha hoose dakhliga guud ee loo qabtay kabka la yiraahdana raashiyada degmada berbera waxay ka qaataa 5% halka ay degmada hargeysa 5% qaato degmada burcana 3% ay qaato marka haddaan 5% ka qaato oo waliba 8 degmo loo sii jaro 8 degmo ka sii farcama degmada berbera loo jaro maxaan u oran waayay 5% maxay caasimadda u qaatay waa kabka guud wey dakhliga kabka guud ee loo qabto MT-ga la yiraahdo laakiin kastamadu mid berbera loo xidhay maayo waa kastamada dalka oo dhan weeyaan waata marka waxaad leedahay raganimada isdheeriyay weeye maaha xeer iyo waxa ayaan la xuskaneynay dawladaha hoose shaqeeyaan oo qaabka ay u shaqeeyaan qaabkaas uma hadalka ugu dhaw waxaan kugu celinayaa mar kale maadaama kastamada dalka oo dhan loo siman yahay oo nin walba kastakiisa wixii uga soo baxa uu qaadanayo dakhligii guud ee dawladaha hoose loo qabtayna 5% caasimada la siiyay 3% la siiyay togdheer la siiyay haddaan ku caban waayay 5% miyana ayaan darahayn waxaan u simanahay nin walba waxa
kastigiisoo soo saaro in lagu eedeeyo degmo keliya loo xidhay waa qalad weeyaan. qaadku waa tusaale waa maado dadka dhibaato ku ah laakiin lacag badanina ku baxdo waddanka oo dhan ka sameeyahay berberaaka dawlad hoose ahaan cashuur intee leeg ayaad ka qaadaan maxaa idin qorshaysan cashuurta inaad ka bedeshaan xaqul xashiish kama qaadno qaadka xataa kunka xaqul xashiishka ee dawladaha hoose qaataan kama qaadno annagu kastanka waxa lagu soo cashuuraa kala baydh wax alaali wax degdeg ka soo galaa qaadka laakiin ma ahayn inaad cashuur ka qaadaan oo maadada culays saartaan maadaama ay dadka dhibaato ku tahay lacag badan ay qaadato waa siyaasad qaran weeye siyaasadda qaranka marba si u taalaa loo fulinayaa marka wax weeyaan cashuurta maadaama cashuurta dawladda dhexe qaadee kastanka lagu qaado mar labaadana kama qaadi karno waxa loo laalay istoobihiin aan lacagta cashuurta ku qaado idinku awood meeyadaan u lahayn inaad cashuur ku soo rogtaan qaadka soo gelaya magaalada lacagta laga saarayo subax awood sharci ma lihin waxa laalay xeerka xirto alif raado ayaa naga laalay waa tamar dekadii berbera isbedel baa ku yimid maalgelin baa lagu sameeyay imaaraadka intii maalgashiga lagu sameeyay dekadii ay imaaraadka iyo sheerka $3 loo qaybiyay maxaa iska bedelay berbera waxa isbedelay boqolkiiba waxaan oran karaa boqolkiiba ugu yaraan boqol horta waxa isbedelay niyaddii iyo qalbigii iyo moralkii dadka sumcad waxa ugu badan ee aynu ka faa'iidnay waxa weeye waa sumcad weeye waxa magaaladii soo aaminay ganacsatadeennii oo maal gashatay iyaguna oo imika hudheer kanaan fadhinaa dee muu jirin waxa weeyaan maantana wuxuu haystaa bableeshka intaa leeg marka shaqaalihiina dee waa loo koriyey mushaharkii laakiin waxaan odhan karaa waxa ugu badan dekadiina waata imika la wado ee sarfeyrka ku jiraan ee qalabkii yaallo waxaynu sugaynaa wax intan ka badan laakiin waxa ugu badan ee odhan karnaa waxaan ka faa'iidnay waxa weeyaan waa sumcad weeye waxaa imanaya intanoo kunoo ajnabi intanoo kambani baa imanaya oo dalkii danaynaya ama hargeysa ha dego ama berbera ha dego marka waxaanu ka faa'iidnay waxa weeyaan dhismihiina waynu faa'iidaynaa waatan deemka la wado sumcaddaana ugu badan oo in dadku ku aaminaan ayaa ka wanaagsan wax ku siiyaan waatay mayr garoonka diyaaradaha dabcan isaga laftiisiina saldhig military oo imaaraadku leeyahay laga dhigaya isaga hawshiisa xagee maraysaa hawshaa saldhigga militarigu markii hore raweygan oo 4225 mitir buu ahaa gebi ahaantiiba waa laga laabay meesha capacity-gu qaadi jira waxaa 40 tan diyaarad ah iminka waxaa la dhisayngareeyo la sameeyey terminal cusub oo weyn oo intii lagu daray weliba dheeraad capacity-giisuna uu 3 jibaar ka badan yahay kii hore lahayn laakiin already waa military base weeyaan ma aha mid ay shicibkeenu isticmaalayaan madaarkii loogu talagalay civilianka ama shicibkeenana isla dhawaan baa la bilaabaya oo dhismihiisii baa la bilaabaya kan laakiin isaga hawshiisii ma bilaabay way socotaa meel fiican bay socotaa hawshiisii kii hore waa la laabay kii dambana 80% ku dhawaad muddo intee lag bay soconaysaa bay kula tahay waxa qorshu ahaa bisha afraad inuu dhamaado waa tahay finiskiisa uu dhamaaday runwayga 90% ku dhawaad waa dhamaaday dhismihii guryahoodii iyo inay bisha afraad contractors ka baxaan ayaa qorsheedu tahay caadiyan berberi waa magaalo ganacsi oo dakhli badan dalka oo dhan ka soo geli karo oo kobaca dhaqaalaha ee dalka ka qayb qaadan karta in badan warshadii sibirka halkan ku taala oo dabcan waxa la yiraahdaa warshada sibirka ee Itoobiya ku taala dakhliga ama kobaca dhaqaalaha Itoobiya 20% waxa ka qayb qaata sibirka warshada haddana sibirka halkan baa laga soo dejiyay iyadoo kiiloomitiro kooban isu jiraan arrinta iyada saad aragtaan mayr wallahi runtii waxaan aan mar labaad ku hambalyeynay madaxweynaha qaranka oo isla markiiba go'aan ka qaatay wuxuu u qabtay muddo wuxuu u fasaxay inay keenaan waxaan ognahay in warshadii tii hore lama isticmaalayo oo marka loo eego investmentka la gelinayay iyo waxay soo saarayso waxa laga doorbiday mid cusub la keeno waxaan ka warhaynaa in 50% caadiga ee sharciga marka warshad la sameeyo 50% baa la shubaa in 50% kambanigii loo shubay isla insha Allah sanadkan inay sibirkeena isticmaali doonto mudan mayr maalgashiga ma dawladda bixinaysa qarashka mise dad muwaadiniin oo ganacsato dalka aba maalgelin waxaan ka warqabnaa in marka hore dad shicib lagu wareejiyay oo reer Soomaaliland oo leeli maalgeliya markii madaxweynahan uu soo baxay Muuse Biixi Cabdina wuxuu yeeray ganacsatadii waxaanu siiyay deadline time ma doonayo waa la dhisayaa waqti ma dhisaysan waqti ma dhamaanaysaa waxa loo sheegay waqtiga ay bilaabayaan iyo waqtiga ay dhamaanayso waxaan kugu celinayaa mar kale in 25% lacagtii lagu dhisay warshada already company-ga haysto gacanta lagu hayo isla sanadkan insha Allah tacaala aan daawan doono inay ka soo baxaan
wax soo saarka soo baxaan sanadka aakhirkiisa. marka waxaad leedahay caqabadaha hore markii hore maalgashiga iska hortaagay ma jirto oo wax maalgashiga ka hortaagan ma jiro cidii loo igmaday dawladihii hore ay siiyeen ku wareejiyeen ayuunbaa lagu yiri wayna keentaan waqtiga waa tamuda maari arbaa lagu ma jeeranaya maayirnimada berbera iyo qaabkaad uga shaqaynaysid oo waa lagu amaanaya warbaahinta haday noqoto iyo dabcan dawladii dhaxo madaxweyne ku xigeenkiiba maandhowto uu sidoo hadlayay lahaa qaabka kana la doonayay in maayiradu shaqeeyaan maayirnimada maxaa kugu xiga anigu marka hore siyaasi ma yahay sideedaba waxaan ahay qof bulshadiisa u shaqeeya farsamo yaqaan baan ahay waxaan u yimiyun waxaan sidiyun bulshadaada markaan eegno 6 sano ka hor waqtigii hanka ay galay inaan soo sharaxo aan waliba maayirnimo noqdo aan helo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahad celinayso ugu guuleeyay waxaan arkay inaan wax u qaban karo bulshadeeda imikana meel u sii socdo ka sareysa ma jirto ilaa hadda waan i qorsheysay aniga laakiin waxaan jeexayaa in dariiqa la raaco la hiigsado wixii aanu dhignay waxa la iskoor baa la xidhaa adduunka cid walba iskoor bay xidhataa iskoorkaan xidhnay ma doonaynaa inuu ama dhaafo orod ku dhaafo kanaga dambeeya ama uu raaco tubta oo dhaqaalaha aan ku leenahay qof walba waa inuu haddii qof loo siiyo waxa la wuxuu bedelaa ma jiro laakiin danta guud wax bedeshaa in caafimaadka waxbarashada leedka biyaha nabadgelyada wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhan oo bulshada oo la kiciyo bulshada oo wax la baro bulshada oo maxaan ku sare loo qaado dhaqaalahooda halkaas aynu doonaynaa in hadhowto haddii caafimaadku hoos u dhaco dam la dareemo haddii waxbarashada hoos u dhacdo la dareemo haddii wax qabadkii la arki jiray joogtada ahaa annagu bil walba January to December waanu wax joogtaa baanu qabanaa wax kastoo qorshaha ka hor imanayna waanu diidnaa waxaan fuulaa kaayaga marka waxaan ku faraxsanahay in wixii aan doonayay markii aan soo sharaxay inaan ilaa iyo dhamaadkayga waxaan u sheegnay sanadkii hore qofku markuu xilku ka dhamaado wuxuu sii taataabtaa noloshiisa dhan buu ka sii warwaraa annagu inaa shilinkii ugu dambeeyay sanadkii ugu dambeeyay ayaanu ku afrogeynaa u sheegaynay inaan sanadka daba wareegay lacagtaas ay u fuli doonto marka waa ka hamigeyga iyo qorshahayga waa tay idinka saa u shaqaynaya maayir oo si qurux badan wali mudooyinka ugu dambeeyay u shaqaynaya oo dadku ishu aad idinku soo jeedo haddana waxaa jira buuq yar oo dhul ku saabsan oo dadka qaar leeyihiin dhul baa maayirka dhisanaya arrinta dhulka maxaad sideedaba cadaalad ma sida cadaaladdu ay tahay mise sida dadkeenu u yaqaanaan adiga oo imika hor joogo nuuradiina waxaad odhanaysaa haddaad dantaada iga weydo tuug baan ahay cadaaladda qofku markuu ku qanci waayo ayuu ku eedaynayaa marka wax weeyaan dhulku wuxuu ka mid yahay shaqada rootiinka maalinlaha ee aanu qabanno marka haddee ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa wax walba ku dhacayaan laakiin annagu waxaanu raacnaa sharciga waxaanu garab siinaa qofka sharciga sita waxaan u fulinaa qofka sharciga sita ma tixgelino mana dhegaysano ku qabso ku qadimaysa ma dhegaysano lagamana yaqaano berbera marka hooyo qofku markuu sharcigiisu dhameystiray ee uu cashuurtay ee uu fasaxaad keensaday wuxuu calanka magan uga yahay in la ilaaliyo hantidiisa oo laga ilaaliyo cid kasta oo ku xadgudbisa qofka muwaadinka laba ikhtiyaar buu leeyahay waa ka koobaad nidaamka dawliga ee sharciga aniga waxa iga sareeya maxkamadaha markuu aniga isaluugo wuxuu tagi karaa maxkamadda wuxuu saari karaa xayiraad sabab anigu ii caayay aniga ii maagay sabab dhulka yaala dhulka muxuu ku saabsan yahay qaab bal dhulka warbixin kala soo qabsadaba doono marka anigu ii yimaado waxaan leeyahay sharcigana ku fasaxayno hadduu ku qanci waayo waa inuu maxkamadda tagaa maxkamaddu markaba way xayiraysaa aniga shaqayta ala maaha anu xayiraadda mana fasaxo mana joojiyo awood kale kumilaagaasi ku dhammaata awooddeedu markaa sababu aniga ii maagay ii caayo waxbaa la cunay waxbuu cunay waa tugi igu dhahdaa maba taalle horta waxay nidaamka hamara dowladnimadii marka maayir maqaabka imika hawshu idinku socoto u soconaysaa mise dhulka doodan ay sheegayaan dadku ayaad u joojin doontaan oo waxbaad la eegaysaa cid kasta oo dhulka berbera ka cabanaysa oo cadaalad darro ka cabanaysa inaan iyagana time siino waanu dhammaan miidiyaha soo casuuno waanu qof walba hortiisa ku qaawino oo sheegno waxa uu sitaa inaan sharci ahayn oo la qabanayo qofka sharciga sita dowladda hoose ee berbera way u fasaxaan dowladda hoose berbera ilaa iyo 1953 shuruucdii taale baa taalla maanta la iskuma qabsado dhulka berbera laguna murmo marka waxa weeyaan ninkii ku qanci waaya dee wuxuu doona ha yidhaahdo laakiin anaga waxaan kuu sheegaynaa nidaam sharciya oo dhammaystiran oo aan isjiid lahayn oo aan la isku qabsanin hadduu ku qanci waayana
uu tagayo maxkamadda ayuumaan u haynaa anagu mar kasta oo muwaadinku sharcigiisu dhammaystiran yahay oo cashuur bixiye yahay oo sharcigiisu dhammaystiran yahay oo fasaxaad qaatay waxaan difaacaynaa muwaadinka sharcigiisa waa tamuda maayir ugu dambayn fariin maxaad u soo jeedinaysaa dadweynahaaga gobolka saaxil gaar ahaan berbera iyo dee si guudba shacabka Soomaaliland dadweynahayga fariintan u faraya waxa weeye marka ugu horreysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka baqaan oo salaadana ha tukadaan dhammaantood rag iyo dumarba marka labaadna waxaan leeyahay shacbigaygu waxaan leeyahay haddii aad aragteen cashuurtii lagaa qaaday iyo cashuurtii lagu qaadayba in adiga lagugu celiyey mas-uuliyadda ku saaran waxa weeyaan inaad ilaashato dar yeelato kana war haysa cidda wax ku haysa wabillahi tawfiiq waa tahay intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeena xog waran oo toddobaadkan aan ku horeysanaynay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Cidin oo noogu martay barnaamijka dib intaynu kulmi doono aniga Nuuruddin Cali jooga barnaamijka halkan idin socodsiinaya aniga iyo Cabdiraxmaan iyo Saciid oo kamarada iga dubiyay iyo maayirkuba dabcan dhamaantii waxaan isleeyahay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh aaba iska waran haye maxaa cusub aaba gaadhigan doonaya inaad ii yara dhiibto haye jaamacaddii baan aaba ka soo noqonay markaan ku soo noqonay aabbo waa sax aabe anna odayaal baan la ballansan oo sugayaaye waa kana qaado ii soo dhaqso haye aabba iminkaan kuu soo dhaqsanay aabbo